ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 13aad waan ka hortagnaa cabsiyaha. Ka caawi ilmahaaga inuu ka hadlo waxa isaga cabsi geliya. Ilmaha way ogaan karaan waxa ay ka cabsadaan, laakiin waxaa dhacda had iyo jeer in aysan helin erayo ku habboon sharaxaadda cabsidaas. Tusaale ahaan, markaad ogaato cabsida ilmaha haysa nooca ay tahay, ha oran ma waxaas ayaad ka cabsataa. Waxaad tiraa aad baan u fahmay waxaad ka cabsanayso si dhaba. Kadibna qorshee ka hortagiddana bilow. Ogow waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. Waan ka hortagnaa cabsiyaha. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.